waxaan ka gudbin doonaa dacwad lid ku ah madaxweynaha oo gal aan furan doono ku dacweyn doono farmaajo dal iyo dibad farmaajo kiiska gabadhayda ilaahay waa uga baqi waay gabadhiisa camal waa uga baqi waay madaxweyne inuu u yahay camal waa uga baqi waay ilaahay waxaan ka baryay laf dhuungasho nagu noqday farmaajo ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu wa ta'ala gurigiisa iyo golahiisa iyo caruurtiisa inuu ka arko gabadhayda cadaaladeeda baa lagu taagay ilaahay waxaan ka baryay waran jinna Allah inuu ku taago نفسك وهمن المد معنون بحي عليك حدد أني قبام لدهي عوضا أني قبام لدو هذا ما ضم بحي فضل الله صار سبسكرايب إلهي خيرها قصيجو وحدك دقال فرح دي رشوجين كاقب إلهي يقول رميج وقال خبر الله يقول صار ورار حقيقة أيا نغو إمريس sidaad halkan ku aragto waa wiil yar oo Soomaaliyeed oo waxa weeyaan wiilal ku soo badanaya magaalada Muqdisho dhalinyaro ku nool oo abta bahasha basadiinta loo yaqaan waa maxadinaya jaab muuqaalkan waa kii ugu dambeeyay wiil yar oo baraha iyo shaariciyada la taagan oo waliba ay dad ka duubeen waa arrin aad u yaab badan muuqaalkan ayaa ku soo qaadan doona sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa fanaanada caanka ee Kiin Shaama oo la sawiran Xariir Axmed oo dhabta ku haya warkii horeba war soo dhaaf waxaas isla soo wadaan baa xagee ayay wax ka yimaadeen Kiin Shaama oo magaalada Hargeysa soo caga dhiganaysa bari ilaa saad dambe sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa qisaya badan oo xanuun badan hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo jana afka furatay markeeda aabaheed hadii ogeyn hooyada Ikraan Tahliil dhashay waxay leedahay anigu ka aqbali maayo iyadoo habaartay madaxweynaha dalka oo waliba tiri sidaadii gashay ilaahay ku qaro waa naxadinaya horta inuu madaxweynuhu gacanta ku hayo ilaahay beenaga og taas u ka dambeeyay mana horta oran ma oga balse waxa weeyaan ilaahay baa og sida wax noqdeen idii qaaday waa la iska og yahay Ikraan Tahliil inkastoo dadku qaarkood ay aaminsan yihiin ba inaan Ikraan dhiman oo aan la ogeyn Ikraan habeen madow miyaa la qaaday inta la cunay laamida dhexdeeda ma la qodo ma lagu sbiyay xageebay wax ka dhaceen sideebay wax noqdeen wadaga arkaya hooyada dhashay Ikraan Tahliil hooyadana markeeda jeeli mayno waxa weeyaan arrinta Ikraan Tahliil runtii talow miyaa la isaga aamusi doonaa kulley waad ogaanay arrintan waxay u baahan tahay in meel laga soo haro waxay warqad u dirtay hooyada dhashay Ikraan Tahliil madaxweynaha waxay leedahay madaxweyne waa inaad qasab sandulle saka ku daloola maadaama madaxweyne dalka tahay qasab waa inaad warqadda kaga jawaabtaa oo aad ku soo ogaataa inkastoo madaxweynuhu guddi u xil saaray balse guddiga u xil saaray dadku waxay leeyihiin waaba guddi daadashinaysa kiiska oo qarinaysa taasaa shaki weyn dhalasay waxay leeyihiin dadka qaar guddidan madaxweynuhu u xil saaray kiiska Ikraan waa dad sii daadashinaya oo sii libdhinaya maadaama la leeyahay madaxweynaha xilkii baa ka dhamaanayo 2 bilood oo kaliya u haray warkii horeba war soo dhaaf balse bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool oo dhan waxay yiraahdeen anagu kuugu celinaa madaxweyne waan kuugu celinaynaa maadaama dalka heerkaas soo gaarsiisay waana haliyay ugu horeeyay ee dalka keena halka runtii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Generaal Mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxa weeyaan waan taageer anigu ninka sababtoo ah waa ninka ciidanka dhisay waa ninka waxa weeye dhisay wax walba habeeyay kulley uu qalmaa marka anigu rayiga ka dhibto uu qalmaayo mar labaad hadii la siiyo isbedel kale weyn baa iman lahaa
isbedel kaloo weyn ayaa iman lahaa. Waad arkaysaa garoonkii halku marayo, tiyaatarkii, wadankii oo caasimadii oo dhisantay, nabad badan oo soo noqotay. haddaba intaynaan xaggaa waxba jeenaan gelin waxa weeyaan arrintan kale ka hadlayna ikraane waxay leedahay hadduu ka soo jawaabi waayana dacwad ka dhanaaban ku furayaaba oo wuxuu noqonayaa inuu ninkaasi wax ka ogaa. hooyada ikraan tahliil dhashay baa sidaata, waa inaan helnaa inantayadii habaar bay dabada u qabatay, way ku miistay, waran lagaa taagiyey sidan kale ilaahay baanu waxbay saa way dhurtay adoo waxba ku miistay madaxweynaha. balse waxa aynu ognahay inaanay ku qanacsanayn guddiga ay u xil saareen madaxweynuhu inay baadhaan kiiska ikraan tahliil. taas ayana u baahan jawaabo iyo su-aalo badan oo laisweydiinaya ayaa meesha yaalla. qofka maqan waa gabadh Soomaaliyeed maaha ri ama neef xoolo ah, gabadh Soomaaliyeed oo weliba sarkaalad ahayd, oo weliba isa hogaaminaysay, oo weliba maareeyaha ahayd gebiga nisaba. waxa weeyaan gabadhaasaa loo daba fadhiisan jiray. waa arrin yaab badan. agaasimihii nisa allah ikraan tahliil waxa weeye arrin aad u xanuun badan. waxa weeyaan dadka qaar waxay leeyihin way nooshayoo waa la qarinayaayo roobliyo farmaasha kubad ciyaaraya waxa weye ina meeraysta ah. kolley waxba xaggaa siyaasadaha geli mayno inagu, balse wararkeena ayay si saxa u sii wadanaynaa. arrinta kale yaabka badan ayaa ah kiin shaamac oo ku sugan Nairobi ayaa ayaamaha soo socda foodka inagu soo haya imanaysa Hargeysa. show bay ku qabanaysaa Hargeysa. hodaney Hargeysa reer Hargeysa u kaca gabadha ayaan idin leenahay. waa war degdeg ah oo aan idin keeno. haddaba sidaynu ognahay Xariir Axmed iyo kiin shaamac ayaa shitay maalmo dhexdaas Nairobi. dadku way isku xanteen oo waxaa la soo helay sawirro isla galgaleen, meel laga keenay la garan maayo. sawirradan xaggee bay ka baxeen? sawirro ay guri ku jiraan Xariir Axmed iyo kiin shaamac, inkasta oo ay hees qaadeen inay heestaa tahay baan anigu u badinayaa, ilaahay bay naga og. balse waa sawirka aad arkaysa baraha bulshada qabsaday la leeyahay dumaashadeen hiblaayo ayaa ka masayrta ayaan u geenaynaa. haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan ilaahay hadda ayaan leenahay. waxaan ku leenahay adiguna nagu soo beer xaqsoor TV walaaloo noo saarso.